السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولاليال كسو دوادا channel كيغا maanta waxaan idinku talagalay inaan idin tuso biscuit aan rabo in gabdhaha markii ay dhali rabaan ay samaystaan si ay maaragtay ay hadhow markii ay dhalaan ay gurigooda ay yimaadaan ay macnaheedu ugu sii taalo biscuit martida hadhow siisan karaan amaba markii iyaga ay aadayaan maxaa la yiraahdaa isbitaalka ay u sii qaadan karaan biscuit yara oo energy gelin kara kuwaas oo ka samaysan waxyaalaha halkan ii saaran tusaale ahaan halkan waxa ii saaran timir aan ugu talagalay in biscuitka hadhowta dhexda laga geliyo oo lagu kariyo waxa kale halkan ii saaran bur ayadana maxaa ku dhahaa bur saafi ah oo loogu talagalay in maaragtay keegaga lagu samaysto waxaad kale u baahnaan kartaa ukun 4 xabo ukun ayaad u baahnaan kartaa waxaad u baahan tahay 250 gram oo sonkor ah waxaad kale u baahan tahay 200 oo maaragtay subag ah subagaas oo ah subaga loogu talagalay in maaragtay lagu qasto keegaga waa subag saafi ah waxaad kale u baahnaanaysaa saliid koob iyo bar halkan koob oo buuxa iyo barkiis oo hadhowta aad ku qasan doontid maxaan ku dhahayo keega waxaad u baahan tahay oo kaleeto maxaa yiraahdaa biyaha maxaan ku dhahayo ubaxa ka samaysan oo kaas oo ku carfin doona hal qaado oo waxaad u baahan tahay oo subagaana si maaragtay hadhowta aad ugu qasatid ayadana maxaa yiraahdaa timirta ayaad ku qasan doontaa hal maaragtay qaado oo gooniya waxaad u baahan tahay sisin aad hadhowta dusha ka saari doontid waa idin tusi doonaa insha Allah taala iyo sidii loo qasayay qofkii sisinta aan jeclayn wuu ka boodi karaa markaa sisinta waxaad kale u baahan tahay waxyaabaha lagu carfiyo oo hadhowta keega aad ku carfisan doontid sida qorfahaas oo ah qorfo shiidan qorfihii oo aad soo shiidato shiidan oo diyaar ah waad helaysaa dukaanka waad ka helaysaa ama waa shiidan kartaa waxaad kale u baahan tahay hayl ayadana shiidan waxaad u baahan tahay oo kaleeto baking powder oo hal qaado ah waxaad kale u baahan tahay maxaa la yiraahdaa carfisada ayadana oo aad maaragtay ku darsan doontid burka waxaad u baahan tahay qaadadan yarta ah oo kaleeto oo ah maxaa la yiraahdaa cusbo walaalayaal cusbada hal qaado oo dhan ma ahan waa xoogaa yar qofka maaragtay inaa ku yareysid way ku fiican tahay saa adiga jeceshahay ayaad ka dhiganaysaa insha Allah waxaad kale u baahan tahay maxaa la yiraahdaa iyadana kii lagu fidinayay maxaa ku dhahayo sabaayada ama rootiga kaad rabtid iyo warqada maaragtay la saarto saxanka hadhowto ayaad iyadana u baahan tahay inaad maaragtay soo diyaarsato saan ayay u eg tahay waa timir waa sisin waa bur saafi ah oo loogu talagalay in maaragtay lagu samaysto biscuitka iyo keegaga waa carfisiyaashii kala duwanaa heylkii iyo qorfihii iyo baking powderkii iyo kii kaleeto iyo cusbo yara waa subagii oo 200 gram iyo qaado yar oo gooni ku ah oo aad hadhowta ku qasan doontid timirta waa 4 xabo ukuna hadaad haysato ukun normal oo waaweyn ayada waa 4 xabo iyo sonkorta iyo 250 gram saliidii ayaad u baahan tahay oo galaas iyo bar ah iyo geedkan kaleeto ayadana hadaad isleedihiin ma al-zahra ayadana waad u baahan tahay si maaragtay ayada waad ku qasanaysaa cajiinka waa ku qasanaysaa timirtana waa ku qasan doontaa iga raali noqda maanta guri saaxiibtay ayaan joogaa oo maaragtay i tusi doonto alaabtan waa alaaba ka heli doontiin waa alaab energy gelin doonto maadaama ay ku jirto timir hadda waan bilaabanaynaa insha Allah assalaamu calaykum saad u jeediinba hadda alaabtii waa kala qaybiyay 2 qaybood ayaan u qaybiyay qaybtan oo ah qaybtii hore oo markii aan soo xashayno maaragtay biscuitkii iyo qaybtan oo ah kadib markii la xasho ka bacdigeed waxyaabihii aan u baahnaan lahayn subagiisii oo halkii qaado ahaa waan dul saartay sisintaana korba hadhow looga daadinayaa kuwana waa wixii lagu carfin lahaa hadda waxaan bilaabaynaa qaybtan oo iyada qaybtan maaragtay u baahan maaragtay burkii iyo biscuitkii marka daawasho wacan weel balaaran ayaad u baahan tahay oo aad ku xashato maaragtay biscuitkii
saa ujeediinba waan idiin sheegay guri saaxiibtay ayaan joogaa waana ka helay mar ay igu casuuntay oo maaragtay ay i tustay aan dhadhamiyey waxaan idinla jeclaysta markaa inaan idinkana ilaa maaragtay aragtiin maadaama ay fudud tahay ay macaan tahay ay maaragtay ay unique nagu tahay oo aan maaragtay horay maaragtay aan badanaaba aan u samaysanin iidaha iyo xafladaha marka hadda wixii la isku dardarayaa waa inay isdhex galaan sonkortii iyo ukuntii afartii xabo ukunta iyo sonkortii ayaa aad la iskugu walaaqayaa saa ujeediinba sonkorta iyo inay isdhex gasho waaye iyo maaragtay ukuntii waa in haddana waxaan ku daraynaa saliidii aad baa iyagana maaragtay la iskugu qasayaa waa inay aad isku dhex gasho saasaad gacanta maanta dhan loogu walaaqayaa galaas iyo bar hadba markaas galaaskii kuu yaala u dhigma galaaskaas ayaad ku shubanaysaa waana la isku walaaqayaa ilaa inta iska dhex galayso sida ay gabadhan saaxiibtay iskugu walaaqaysa ayaad isku dhex gelinaysaa insha Allah waxaad kaloo ku sii daraysaa iyadana subagii maanta dhan si aad u walaaqaysay markii aad aragtay inay iska dhex gashay wixii oo dhan ukuntii iyo maaragtay subagii iyo sonkortii waa inay aad isku dhex galaan hadda marka waxaan ku darsanaynaa carfisadii ayaan ku darsanay iyadana maaragtay waa la isdhex gelinayaa baking powderka iyo burka ayaga gooni ayaad iskugu walaaqan doontaa hadda marka biyihii ubaxa ayaan ku shuban doonaa iyadana laba qaado ayaan ku darsanaynaa oo maa al-zahra ah hore waxaan ugu soo darsanay carfisadii powderka ahayd isla biyahaasna waxaan ku darsan doonaa hadhowta haddii ilaahay yiraahdo timirta waa ujeedaan waa in la isdhex geliyo aad maaragtay iskugu milmaan hadda maaragtay fixisadii ayaan ku darsanaynaa burkii intaan fixisada maaragtay lagu darin geedkaas aadan ku shubin waa inaan iyaga isku soo walaaqdid ayaga waa inay xoog isku soo dhex galaan saad ujeediinba waa in maaragtay aad shaqshaqdiin markii aad maaragtay waxyaabihii aad isku soo darsatay aad ku darsan doontid waad shaqshaqi doontaa si uusan buurbuur iyo kaaga yeelanin insha Allah markastoo aad shaqshaqdidna waad isku sii walaaqaysaa sida ay gabadhu samaynayso waan hubaa inaad ka heli doontiin oo maaragtay aad la dhici doontiin sida anigaba uga helay markii aan dhadhamiyay walow markii koobaad aysan ahayn haddana macnihii waad ka heli doontiin waan hubaa qofkii aan jeclayn inuu timir dhexda ka geliyo waa idin tusi doonaa waxaa jiro shukulaato aad iyadana aad gashan karto shukulaato aad ku bedelan kartaa timirta balse timirta baa aniga igala sii macaan marba waad ku sii daraysaa hadba gacantaada saad rabtid inay kuugu jilicnaato ayaad marba maaragtay burkii oo shaqshaqatay ayaad marba kor uga sii shubaysaa ilaa maaragtay intuu iskaga kaa dhexgalaayo adiga iska kiilo camal waaye waxaan aan hadda samaynayno
sidaad u jeediinba saaxiibtay markay xashayso si tartiiba oo maaragtay qurux badan ayay u xashaysaa ma u baahnid sida sabaayada inaad u xashtid oo xoog aad gelisid si tartiibaad usoo xashanaysaa oon muruqna ku gelinaynin igana raali noqda markii waxaan iri qofkaan jeclayn timirta wuxuu ku darsan karaa shukulaato sidaas ma ahayn xaajada mar walbaba maaragtay timirta ayaad u baahan tahay laakiin qorfaha meeshii qorfaha aad kaga dari lahayd waxaad ku darsan kartaa bay igu tiri saaxiibtay maaragtay shukulaato saa u jeedinba waxay noo noqotay sidaan ayuu noqday marka laba qaybood ayaan cajiinkii u kala qaybinaynaa kadib markaan isu soo dhexgelinay oo si qurux badan isu soo dhexgelinay laba qaybood oo isla eg ayaad ka dhigaysaa hadda waxaa inoo dhammaatay qaybtii koobaad ee maaragtay xashitaankii cajiinka haddana waxaan gelaynaa qaybtii labaad iyo timirta waxa weeye 800 oo gram adiga kiilo oo wax yar dhiman kiilo timira oo timirtana iyadoo diyaara jirto oo laga soo bixiyay lafihii dukaankay taalaa qofkii rabana asagaa lafihiisa ka bixin kara oo soo maaragtay xashi kara laba qaado oo maaragtay maa zahr ayaan ku darsanay waxaan kaloo ku daraynaa heylkii tunnaa هيل نول ما بهند ما استعمالي ست واحد استعمالي سا هيل تمن iyo qorfad tuman ayadana iyo subagii oo hal qaada ahaa intaas ayaa lagaaga baahan yahay inaad isdhex geliso isku soo xashto sideedabana subaga iyo maxaa la yiraahdaa iyo timirtii oo maaragtay bilaalafta ahayd waa inaad xilli hore banaanka soo dhigatid iyagoo maaragtay jilicsan waa inaad maaragtay 3 saac 4 saac 5 saac ka hor banaanka subaga iyo timirtaba iska soo dhigo xoogaa yar timirta waxaad moodaa inuu adag yahay balse subagana wuu jilicsan yahay sidiisaba laakiin 3 saac 4 saac ka hor ayaan banaanka usoo baxsanay suu noogu jirco saa u jeediinba wuu noo jilcay waan isa soo dhexgelinay timirtii iyo subagii iyo maa zahrihii saasuu noo noqday waa inuu saas oo kale idiin noqdaa saad u jeediinba hadda waxaan soo qaadanay warqad waxaan rabnaa inaan ku kala bixino waa idiin sheegay markii waxaan idin dhahay laba qaybood ayaad u kala qaybinaysaa cajiinka haddana qaybaan soo qaadanay warqadaana dusha ka saaraysaa midna hoosaad dhigaysaa midna dusha ka saaraysaa si ay maaragtay aad u fidisid biskutkii waxaan rajeynayaa inaad arkaysiin midna dusha laga saarayaa midna hoos baa laga marinayaa miiskaad saaranaysaa waadna ku fidinaysaa ilaa ay ku kala baxdo waa ujeedaan waa qaybtii koobaad ee burkii waa soo fidinay afrigees ayaan kasoo dhignay waa in maaragtay saas oo kaleeto aad usoo samaysid midka kaleeto oo ayadana qaybtii labaad ahaydna saan oo kale ayaa loo sameynayaa waxaan soo qaadanay timirtiina sidii aan u fidinay maxaa la yiraahdaa cajiinka ayaan u fidinaynaa ayadana waa arki doontiin markaan dhammayno ayadana waad u baahan tahay warqad aad kor ka saarto oo aad kula fidisid Vad sa du? Att vi fuskar? Vad menar du att vi fuskar?
Nej, det gör ingenting. För de måste också veta att de kan använda. Ja. Det är inte fusk, det är inte så att det blir perfekt. De ska veta ungefär vad de kan göra. Det måste vara så, samma nivå. Samma storlek. Ja. waa u jeedin walaalayaal say noo noqotay timirta waa in ay noqoto size-ka cajiinka oo kaleeto xabad kale ayaa iyadana noo harsan oo hadhow dusha laga sii saari doono waa u jeedin tii kale ayaan dusha ka soo saaraynaa waa in ay isla ekaato insha Allah cajiinkii waxaan bilaabaynaa labaad waa taan idin laba qaybood ayaan u qaybinay ayadana hadda fidinaynaa taasoo kale ayay noqonaysaa dusha laga sii saaraya insha Allah warqadan kor laga saarayo wuxuu ku fududeynayaa inaad kala bixisid iyo inaad hadhowto qaybihii hore aad dusha iska sii saartid ayay ku fududeynay iyo waliba inay isku kala ekaadaan oo jin isku noqdaan markii aad isii dul saarteen saddexdii qaybood haddana waad isla fidinaysaa adigoo isticmaalaya geedkan lagu fidiyo wax noocu doonaba ha noqdo nooca jeceshahay ee wax kuu fidinaya insha Allah kadibna dhinacyadii ayaad ka wada jaraysaa si ay iskugu kala ekaato qurux kuugu soo baxdo hadhowna maaragtay markii la cunayo uu si fiican kuugu dubmo waa u jeedaan saaxiibtii dhinacyada ayay ka jaraysaa afartan dhinacba saad u jeediinba dhinacyadii ayaan ka soo jarnay dhinacyadana ma tuuraysid ayagana waa dubi kartaa waa isla cajiinkii ciyaalkana waa siisan kartaan haddaad doontiin idinka maaragtay cuni karo yacni intaas quruxda kusoo baxdayna martida iyo markaad isbitaalka sii aadaysiin waa u baahantihiin energy wax ah maaragtay inaad sii qaadatiin hadda sii bilow inaad dabka sii shidatid waxaad geysanaysaa 200 iyo kor iyo hoos ayaad geysanaysaa hadda ayaad bilaabanaysaa inaad sii shidid waxaad kale u baahan tahay ugu dambeyn si aad maaragtay sisintii aad ugu sii qasato ukunta qaybteeda jaalaha ah iyo qaado oo waxoogaa yar maaragtay dhiman oo maa zahar ah ayaad u baahan tahay si hadhowto maaragtay sisintii uu maaragtay u qabsado waan idin tusi doonaa intaas aad isku qasaysaa waa ukunta qaybteeda jaalaha ah saasaad u marmarinaysaa hadda waxaan soo marsanay ukuntii jaalaha ahayd iyo waxaan soo marsanay iyo biyihii carafta badnaa si ukunta urteeda ay maaragtay uga baxdo ayaan ugu darsanay maa zahraha haddana waxaan ku darsanaynaa sisintii yacni wuu kuu qabanayaa maxaa la yidhahdaa ukunta iyo markii la isku maaragtay saas la iskugu shubo wuu qabanayaa waa inaad wada gaarsiisid maaragtay cajiinka kulli sisinta adiga sisinta intaad rabtid qiyaastii sidaas inay kuugu ekaato ayaa la rabaa intaas markay marayso waxaan bilaabaynaa inaan meesheeda ku jarno waad jarjaraysaa qaybo isla eg ayaad ka dhigaysaa kadibna maxaan ku dhahaa weelkan oo aad geedkan soo saaratay ayaad
iyadoo jarjaran sii dul saaraysaa. waan idin tusi doonaa haddaan bilaabaynaa insha allah. afar gees ayaad u jaraysaa oo isla eg, si taxadar lehna waad u jarjaraysaa. mar walba hal micnihii waxaad u jaraysaa maaragtay dheer gooni ayaad mar kastana afar gees ugu sii jaraysaa. iyadoo afar geeskaas ah ayaad saxanka sii dul saaranay. saan ayay u ekaatay markii saxankii lagu safay. mar walba oo aad maaragtay saxanka markaa ku saftid kabacdina gacanta ku riixri si sisinta ay u gasho burkii iyo ukuntii aad soo marmarisay. gacanta saa ugu riixriix. saa u jeediinba hadda waxaan gelinaynaa foornada. dadka foornada haysta unbay anfacaysaa, qofkii kalena siduu doono ayuu u samaysan karaa Soomaaliya hadduu joogo.